Gacali Shuuriye Cali waa hooyo ku nool magaalada Mandheera waxayna haysataa 3 caruur. Nasiib darro qoyskan waxa laga karantiilay aabahooda oo ahaa horjoogaha reerka. Gacali Saygeed wuxuu ka mid yahay bukaanada la xanuunsan caabuqa COVID-19 wuxuuna ka maqan yahay reerkiisa muddo gaarayso 2 bilood sida ay sheegtay xaaskiisa. Odayga reerkan wuxuu ahaa shakhsi kaliya soo dhicin jiray qutuliyoonkooda, maantana ma haystaan cid wax la qabato. Maama Gacalana horay uma baranin in ay u shaqeyso qoyskeeda. Gacali Shuuriye Cali oo Mandheera County oo Boorqorac joogto maxaan ilmaha 3 cunugan haystaa. Dawladda maxaan ku codsanahay 3 cunugan haystaa wax ilo og ma jirto. Dawladda ilmo og ninkayda muddo 2 bilood ku dhaweyd karantiilan yahay. Dawladda maxaan ku codsanahay inay cunmeyd wax aabood la soo daayaan. noloshadeen aabbayna saxiiran yahay dawladda wax noo tir noloshadeen qilqil ay ku jirtaa. Guur kiro oo 3 kun oo ku jira. waxay dawladda ay ugu taageertayna ma jirto inay aabay noo soo daayaan dawladda ka codsanayna waas fiican aabay dhakata ay ma xanuunayso dhaha hadduu aabay xanuunsan yahay waxna siina uma jirto jiraan la wax noo keeno weey aaban ma qaba abis cuuriyaan waan in hooyada waa dhimta baby sano la bayn muxuu jooga baadiyo wuxuu soo taageer kara ma jirto ma wiiliga ma shaqeynaa si la noo soo shaqeynaa elyoon KBR waaye elyoonkiisa waa raastanay haddana waa soo dumaqan waxa noo keena ma jirto waa xanuun in caruur yar ay ku quraacdaan shaax bageys ah oo aan lahayn cunno kale mana haystaan cid kale wax siiso aan deriskooda ahayn. Nadiifo Maxamuud waxay la dhalatay caruurtan dhibaataysan aabahooda waana qofka kaliya ay maanta haystaan balse iyaduna ma haysato dhaqaale ku filan oo ay ku taageeri karto qoyskan. familkan xaaladoodii aad bay u culus tahay alxamdulillah inkastoo ay culus tahay wixii u shaqeynay waa aabaha maadaama laga karantiilay maxay dab saaranayn waa maya dawladda markay qabatay ayay u imaada way baarto waxay dhaadna ka tayfaatihiin waxaan ka rabnay markay nakatif yahay ay cid ay tahay waxaan ka rabnay dawladda inay ka soo siiso warbixin labaad cid ay dhaadna maxad ku nooshihiin mayna dhihin maxad ku nooshihiin mayna dhihin maxad qabtiin mayna dhihin maxad cuna haysaan aabe maadaama uu karantiilan yahay subaxan isturunga kale ha loo kare isturungi ma ilmaha waa adarkaysa ilma noocan isturungi ma xamili karaan ma awoodi karaan isturungi. Dawladda ismaamulka Mandheera waxay maalmo ka hor bixisay cunno looga talagalay qoysaska saameeyay COVID-19 balse sida ay sheegtay hooyada qoyskan ma jirto wax qoonda ah oo ka soo gaaray raashinkaasi maadaama ay dawladda karantiishay aabahooda waxayna dawladda ka codsanayaan in ay qaado mas'uuliyadda reerka ama ay u soo deyso aabahooda si uu daboolo baahida qoyskiisa. Dawladda waxaan ka codsanaynaa maadaama wiilka walaalkay uu karantiilan yahay oo ku jiro meeshaas iyada cudurka uu qaba oo xaqiiq haday ahayn dawladda xageeda uu ka karantiilan yahay waxaan ka codsanaa dawladda inay gacan saar ilmahan sabiyaanka ay soo siiso. qoyskan oo kaliya uma dhibaataysano caabuqa corona dartiisa waxaa jira kumanaan qoys oo maanta ka xirmay goobaha ay ka heli jireen qutuliyoonkooda. Sidoo kale dawladda ismaamulka Mandheera dadka ay karantiishay waxay ka cawdaan daryeel xumo dhanka nolosha. Maxamed Ibrahim magaalada Mandheera.